tafsiirka suuratu nasri waa suuradda 110 ee qur-aanka kariimka ah. waxay suuraddu ka kooban tahay 3 aayadood. waxay ka hadlaysaa suuraddu hal mowduuc. halka mowduuc ayaa ah in rasuulka sallallahu calayhi wasallam la ogeysiinayo inay soo dhawaatay waqtigu geeriyoon lahaa oo uu u diyaar garoobo. taasna waxaa tilmaamaya xadiiska cabdilaahi bin cabbaas radiyallahu canhu. cumar bin khadaab ayaa ahaa mid aad u jecel cabdilaahi bin cabbaas oo ahaa wiil yar oo dhalinyaro ah. wuxuu u kaxaysan jiray golayaasha shirweynaha ee odayaasha madaxda ay ku shirayaan. odayaasha qaar ka mid ah ayaa yidhi, muxuu ahaa wiilka yare la keenay meesha lagu shirayo? annaguba wiilal isagoo kale ayaan dhalnay, balse meelahan oo kale ma keenno. haddaba cumar bin khadaab ayaa damcay inuu dadka u caddeeyo wiilkan yar wuxuu wiilasha kale kaga duwan yahay. haddaba odayaashii ayaa maalin maalmaha ka mid ah isku yimi. goobtaana waxaa joogay cumar bin khadaab iyo cabdilaahi bin cabbaas. cumar bin khadaab ayaa odayaashii su'aal weydiiyey oo ku yidhi, bal iiga warama oo ii sheega suuradda idaa jaa nasrullaahi walfadxu waxay ka hadlayso. odayaashii ayaa ku yidhi, suuraddu waxay ka hadlaysaa markii nebiga sallallahu calayhi wasallam ilaahay subxaana watacaala uu guul siiyey ee uu guulaystay ayay suuraddu sheegaysaa inuu ilaahay subxaana watacaala u tasbiixsado oo ilaahay subxaana watacaala dembidhaaf weydiisto. haddaba cumar bin khadaab ayaa su-aasha weydiiyey cabdilaahi bin cabbaas oo ahaa wiil yar. markaas ayuu ku yidhi, adiguna sidee ayay kula tahay? cabdilaahi bin cabbaas ayaa isaguna yidhi, suuraddu waxay ka hadlaysaa nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa la ogeysiinayaa in geeridiisii soo dhowaatay. cumar bin khadaab ayaa isna yidhi, aniguna sidaas ayaan ka fahansanahay. haddaba aynu bilowno tafsiirka. bismillaahi araxmaani araxiim. waxaan ku bilaabayaa magaca allaah ee naxariista guud iyo midda gaaraaba naxariista. idaa jaa nasrullaahi walfatx. markii ay kuu timaado guusha alle subxaana watacaala iyo furashada maka. wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diini illaahi afwaaja. oo aad aragto dadkii oo gelaya diinta ilaahay subxaana watacaala waa islaamkee iyagoo koox koox ah. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتصبيحسو الله سبحانه وتعالى أديقو الله مهدينتيسا كدريا دنبدافنا ويديسو الله محايا لي الله سبحانه وتعالى وطوبة أقبله.